akhyaarta dhammaan waad wada salaamantiin sidaad u wada dhantiin casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee baad u samayn kartaa music app. Okay, halkan waxaan ku haystaa folderkani waxaan ugu magac daray waa music app. halkan waxaan ku haystaa font awesome, waad soo download garaysan kartaa. Okay, ama maaha linkii baad ku xiriiri kartaa. muhiimadda laakiin inaan iconadii waxyaabaha nooca inuu inaga support garay ahaan baan u isticmaalnaa. halkan waxaan ku haystaa waa heesooyin, halkan waxaan ku haystaa waa sawiraan. haddaba waxaan sameynaynaa si aynu u sameyno music application-ka waxaan ku dul furaynaa waa VS Code. VS Code gudihiisii baan ku dul furaynaa. haddaba marka waxaan sameyn doonaa waxaa ka mid ah yani qofka application-ka markuu sidaa usii galo marka ugu horeyso waxaan rabnaa iska kansalo, halkan aan imaano folderka gudihiisii. marka waxaan sameynaynaa waa index.html. okay, index.html. sidoo kale waxaan u baahannahay waa style.css. sidoo kale waxaan sameynaynaa waxaan u baahannahay waa app.js. okay, folderkani wixii ay dil way isku wada furan yihiin. haddaba kaliya halkaa marka ugu horeysa waxaan ka shaqeynaynaa waxaa ka mid ah waa indexigaasi. marka hore halkaan aan imaano indexiga aan browserka kusii furano. haddaba halkaa baan imaanaynaa oo waxaan ku qoraynaa waa docs oo si aan wixiinaysi automatic ahaan si ay inoogu imaadaan. marka waxaan leenahay hees baan leenahay marka. okay, haddaan halkaa imaano sida halkaa ku aragtaan waxayni waa inoo diyaar oo halkaa baan imaanaynaa. haddaba waxaan u baahannahay qaybta container. waan soo qaadanaynaa container. wuxuu idil halkaani baan ku muujin doonaa hadduu alla idin insha allah. laakiin ka hor waxaan rabnaa markaa linkiyada inaan ku xiriirino. linkiga koo wuxuu noqonayaa waa font awesome-ka css all main.css. sidoo kale waxaan u baahannahay linki kale oo custom ah oo anaga markaa aan sameynay oo stylekaasi. okay, wixii waa inoo wada diyaar. hadda linkiyada waan ku xiriirinay. wixii kooda halkan baan gelin doonaa daalay insha Allah. marka waxaan u baahannahay laba qaybood baan u kala qaadaynaa. qaybta koowaad waxay muujinaysaa waa maartay heestii iyo sawirkeedii iyo wixii looga baahnaa. okay, qaybtan waxaan u baahannahay waa sawir. sidoo kale waxaan u baahannahay qayb kale marka anaga aan ku muujinayno postiska iyo wixii idil. okay, marka waxaan leenahay halkaa waa yani wixii detail. okay, heestii waxay ku saabsanay heesta. marka h2 baan soo qaadanaynaa oo waxaan siinaynaa id-ga. marka waxaan leenahay waa cinwaan, waa heesta magaceedii. tusaale ahaan heesta hadday tahay aan dhahno tusaale ahaan kaba soo qaad waa hees jacayl. waa hees jacayl baan leenahay. laakiin waxaad gelinaysaa waa halkaa muhiimadda waxay tahay inaan kusoo muujino heestii laftigeedii magaceedii saxda ahaa. sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa id oo waxaan leenahay heesta yaa qaaday waa fanaan hebel oo kale. okay, ama ma ahan. okay, fanaan hebel baa qaaday baan leenahay. kadibna waxaan soo qaadanaynaa waxay tahay intaas aan ku ekeyno. tusaale ahaan waxaan leenahay waa mohamed bk oo kale. okay, halkan marka waxaan soo qaadanaynaa heesta waxay ku saabsan tahay ama ma ahan inta aan ku ekeyno. haddaba hal sawir aan soo qaadano oo waxaan leenahay imageka gudihiisa. marka waxaan soo qaadanaynaa hal sawir. okay, let us check this. okay, number 1. marka haddaan browserkeena kusoo laabano waxaan arkaynaa waa sawirkii iyo heestii magaceedii iyo qofkii qaaday. sidoo kale waxyaabo kale waan ku dari doonaa, dib aan kaga dari doonaa waxyaabihii dheeriya. okay, let us say paragraph id baan siinaynaa oo waxaan leenahay abwaan ama dj. marka wixii dheeriya marka waan isaga darinaa waxaan leenahay hayd falaax dj oo kale. ama ma ahan haddii abwaan laga hadlo
abwaan ahaan baan ugu darinaa waxaan leenahay hadraawi oo kale laakiin yacni abwaanka yacni heestii qofka qoro oo kale isaga qoraysaa ama ma ahan middaa marka waxay imaanaysaa waa meesha ugu dambeyso okay haddaan jeeg garayno waxayna sidaasi bay noqonayaan haddaba waxaan sameynaynaa waa style okay qaybtaasi markaan kasoo gudubno qayb kalan u baahannahay okay classkan halkaasi buu ku egyahay class kalan soo qaadanaynaa oo aan ku muujinayno wixii badhana ah marka waxaan leenahay .btn oo button aan ugu soo gaabinayo marka waxaan soo qaadanaynaa waa button okay buttonka gudihiisii marka waxaan leenahay waxaad siisaa on click si aan java ugu sii xiriirino ama ma ahan wixii java haynoo dambeeyo halkaa waxaan soo qaadanaynaa waa ida waxaan siinaynaa waa class kadibna waxaan leenahay fa kadibna waxaan leenahay maxaad u baahan tahay halkaa step backward baan u baahannahay waa kalaabashadii yacni previous okay halkan waxaan u baahannahay waa play okay halkan waxaan u baahannahay waa step forward haddaan jeeg garayno sida dalka ku aragtaan waxayni waa inoo wada diyaar oo keliya waxaa inoo harsan waxayni inaan ka dhigno waxa markaa hees u eg okay aan qaabayno style baan imaanaynaa marka hore waxaan soo qaadanaynaa waa midka kadibna waxaan leenahay midka baadinka iyo marginkaad ka saaraysa oo margin 0 baan leenahay oo box border okay intaa markaan kasoo baxno waxaan haysanaa halkan sidaad ogeedin waa containerka baan soo qaadanaynaa halkani waxaan leenahay classka containerka soo qaado containerka gudihiisa marka waxaan leenahay tusaale ahaan justify content center align items center display flex direction plume height of 100 vh sidoo kale width of 100% haddaan jeeg garayno waxayniyo idil sidani bay noqonayaan laakiin sida dalka ku aragtaan waxiyo idil way waaweyn yihiin yacni sawirkii baa weyn haddaba waxaan tagaynaa waa qaybteynii anaga aan haysanay heestii iyo sawiraantii iyo waxiyo idilan kusoo muujin lahayn sida dalka ku aragtaan imagena waan haysanaa haddaba hees baan soo qaadanaynaa oo waxaan leenahay dot hees oo class ah image baa hoos yaalo imageka marka waxaan leenahay width of 250 height of 250 pixels sidoo kale waxaan u baahannahay waa border radius of 50% haddaan halkaa kusoo laaban sida dalka ku aragtaan waxayni waa inoo wada diyaar haddaba waxaan kala fogeynaynaa waa waxyaabahan oo waxaan leenahay containerkan ku laabanaynaa line height baan leenahay of 10 let us see sida dalka ku aragtaan or let us make like 3 sida dalka ku aragtaan waxayni way kala fogaanayaan laakiin waxaa qaab daro noqonaya waa kuwa laakiin sidaa awgeed marka waxaan leenahay 2 aan ku dhaafna halkaa haddaba halka aan kusoo laabano waxaan ka shaqaynaynaa waa button okay classka button soo qaado oo waxaan leenahay buttonka soo qaado buttonka marka waxaan leenahay margin tab of 50 pixels okay padding of 10 okay sida dalka ku aragtaan waxay way kala fogaaneen haddaba classka button hoostiisii waxaa yaala waa badhanadiyo idil button baan soo qaadanaynaa kadibna waxaan leenahay padding of 10 border of what border none sidoo kale outline baan soo qaadanaynaa oo waxaan leenahay none sidoo kale waxaan u baahannahay padding baan soo qaadanay backgroundiga waxaan leenahay background of let us say okay 00 okay black aan ka dhigno laakiin muhiimadda waxaan saaraynaa waxay tahay waxaan u baahannahay colorka marka waxaan leenahay inuu white ahaada haddii wixii sidaa ay noqdeen sida dalka ku aragtaan waxayni waa inoo diyaar haddaba waxaan sameynaynaa backgroundiga baan bedelinaa wixii si ay u muuqdaan background image url baan soo qaadanaynaa images waxaan soo qaadanaynaa backgroundiga labaad aan save garayno sida dalka ku aragtaan okay waa qaab daro laakiin
anaga waxaan sameynaynaa background size cover baan leenahay markaa. Okay, sida dalka ku aragtaan muusigani iyo wixii anaga markaan diyaarinayna waa inoo diyaar. midabkani baan bedelaynaa, waxaani baan qaabaynaynaa. si aan waxaas u qaabayno markaa waxaan leenahay halkaa okay, hoverkaad ku qabanaysaa, kadibna kana kusoo baxayo waxaanan yaraynaynaa markaa. okay, sida awgeed waxay noqonayaan qaabkan. okay, haddaba waxaan leenahay halkaa cursor-ka waa inuu ahaada pointer. sidoo kale waxaan leenahay border radius of 50%. sida haddaad halkaa ku aragtaan waxayni waa ay qaabaysan yihiin. okay, haddaba hover baan u sameynaynaa oo waxaan leenahay oo midkaa hover u sameey. hoverka gudihiisa marka waxaan leenahay background of let's say like gold, then we check. sida dalka ku aragtaan hoverkini wuu hagaagsan yahay. casharkan casharka ku xigo intana kasii bixin waxaan bedeli doonaa waa qaybtan qoraalada oo waxaan haysanay waa hees. okay, hees markaa waxaan leenahay text align-keedu waa inuu ahaada centerka. sida dalka ku aragtaan centerkii bay yimaadeen, laakiin waxaan bedelaynaa sidoo kale color. midabkoodii waxaan ka dhigaynaa waa white. okay, white. sida dalka ku aragtaan waxayni waa ay qaabaysan yihiin oo way midaysan yihiin. kaliya waxaan u baahannahay hadda inaan javascript kaga shaqeyno. mobilada sidaas uu ku noqonayaa. okay, background-igana midkaad rabtaad saaranaysaa. okay, midkii adiga markaa ku xajibiyo adiga aad jeceshahay aad saaranaysaa. waad iska bedeli kartaa oo maaragtay wax sida u weyn ma ahan. background 4 haddaan jeeganayno waxayna sidaasi bay noqonayaan. midkan oo kale markaad isticmaalaysid midabkaasi waa inuu ku ahaadaa black. okay, midabkaasi waa inuu ku ahaadaa black. sida dalka ku aragtaan waxayni si qurux badan bay noqonayaan. sidoo kale haddaad rabto sawirkaas inaad bedeshidna waxaad tagaysaa waa indexiga, kadibna sawirkii baad bedelaysaa. halkaanaad imaanaysaa tusaale ahaan mid number 1 baad isticmaalaysay, kadibna waxaad ka dhiganaysaa tusaale ahaan sawirkii oo kale. sida dalka ku aragtaan sawirkii halkaas kasoo muuqanayo. haddii adiga markaa oo aad rabtidna sawirkii markaa adiga kula fiican aad saaranaysaa. muhiimadda laakiin anaga waxaana u sameynaynaa waxaa ka mid ah inaan isticmaalno okay, number 2. let's check to number 1. things right. yeah, marka muhiimadda casharkan ku xiga wuxuu noqonayaa next. markaan dhahno inay waxaano idil inay isbedelaan. next previous markaan dhahno heestii hore inaan ku laabano, sawirkan uu isbedelo, waxyaabahan dhan ay isbedelaan oo heestii kale si aan ugu sii gudubno. waxaan rajeynayaa casharkan iyo casharka ka xigo inaan kusii gaari doono hadduu alla idmo insha allah. si degdeg baad ku heli doontaan casharkan casharka ku xigo oo dhammaystiraya casharkani. laakiin muhiimadda waxay tahay inaad fahantaan qaybtan background-iga waxaad saaranaysid waxay saameynayaan qoraaladaadii midabkoodii. haddaba waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen casharkan iyo casharka ku xigo oo anaga markaan sameyn doono heestii iyo wixii layerkii iyo next iyo previouskeeda. sidaa iyo nabadgelyo.